wafdi ballaaran oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Saraar Ibraahim Xaaji Xasan Cali ayaa gaaray degmada Waridaad oo kamid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka Saraar. wafdigan oo ka kooban maamulka heer gobol iyo mid degmo, mas'uuliyiinta kastamka magaalada Caynabo iyo saraakiisha ciidanka booliska ee gobolka Saraar. wafdigan ayaa sida ay saxaafadda u sheegeen intii aanay gaarin degmada Waridaad waxa ay tilmaameen in ujeedada safarkoodu uu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa tayada maamul ee degmada Waridaad iyo sidoo kale sidii loola dagaalami lahaa kontrabaanka bilaa sharciga ee ka gudba deegaankan, kaasi ay ku tilmaameen in dadka wada kontrabaankaasi ay xidhayaan dekada Berbera isla markaasina ay camirayaan dekada Boosaaso. waxaa sidoo kale safarka wafdigan ballaaran ee haadka u heerka sarreeya aan iyaduna ka maqnayn la dagaalanka goynta iyo gubidda dhirta qoyan. ugu horreynba wafdigan ayaa markii ay gaadheen degmada Waridaad waxay kulamo gooni la yeesheen odayaasha waxgaradka iyo culimada degmadaasi Waridaad, waxaana ay dhammaantoodba kala hadleen sidii loo horumarin lahaa degmada Waridaad isla markaasina degmada Waridaad looga dhigi lahaa mid maamulkeedu si fiican u shaqeeyo isla markaasina la jaanqaada nidaamka dawladnimo ee gobolka Saraar haatan uu ku tallaabsaday. ugu dambeyntiina shir ballaaran oo kaga wada hadlayay horumarinta degmada Waridaad ayaa maanta waxa lagu qabtay fagaaraha khayriyada ee degmada Waridaad. waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta heer gobol iyo mid degmo ee horkacayay barasaabka gobolka Saraar, mas'uuliyiinta degmadaasi Waridaad iyo dadweynaha aad u tiro badan oo ka tirsan shacabka degmadaasi Waridaad. ugu horreynba waxaa kulankan ka hadlay maayirka degmada Waridaad Cilmi Jaamac Indhadeero oo qirtay in waqtigii hore uu ka seexday horumarinta degmada Waridaad, balse waxa uu haatan ballan qaaday inuu guntiga u xidhan doono sidii uu horumarin lahaa degmadiisa Waridaad. gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Caynabo Abubakar Shida Xasan isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa isaguna waxa uu ballan qaaday inuu ka dawlad hoose ahaan shaqayn doono maamulka degmada Waridaad sidii ay uga caawin lahaayeen dhinacyada tababarada iyo wixii technical ah ee uga baahato maamulka degmadaasi Waridaad. waxaana uu tilmaamay in dhawaan degmada Waridaad ay haatan ay u wadaan isla markaasina haddii looga baahdo ay u soo diri doonaan farsamo yaqaanada dhinaca dhulka iyo cashuuraha si ay uga caawiyaan maamulka degmada Waridaad sidii ay si fiican ugu gudan lahaayeen hawshooda shaqo. barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa tilmaamay in cashuuruhu yihiin lafdhabarta dhaqaalaha dalka, waxaana uu tilmaamay in haddii aan la helin cashuur isla markaasina shacabku iska bixin cashuurta aan dhaqaale jirin. shacabka reer Waridaadna ugu baaqay inay iska bixiyaan cashuurta. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Jaamac Guudcadde ayaa ka codsaday shacabka reer Waridaad inay la shaqeeyaan ciidanka booliska, waxaana uu tilmaamay inay haatan degmada Waridaad keeneen ciidan booliskaas oo ka shaqayn doona nabadgelyada guud ee degmada Waridaad iyo weliba la dagaalanka kontrabaanka iyo weliba goynta iyo gubidda lagu hayo dhirta qoyan. waxaa iyaguna munaasabadan ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmadaasi Waridaad, kuwaasoo dhammaantoodba ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan sidii ay isaga bixin lahaayeen cashuurta isla markaasina ay uga qayb qaadan lahaayeen sidii loo horumarin lahaa degmada Waridaad. ugu dambeyntiina waxaa kulankan soo afmeeray barasaabka gobolka Saraar Ibraahim Xaaji Xasan Cali oo maamulka degmada Waridaad kula taliyay isla markaasina ku dardaaray inay u shaqeeyaan shacabka ay mas'uulka ka yihiin. waxaana uu tilmaamay barasaabku in degmada Waridaad ay tahay lafdhabarta gobolka Saraar isla markaasina sidoo kale ay tahay xudunta dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland kala badha. waxaana barasaabku uu tilmaamay in degmada Waridaad ay muhiimad weyn ugu fadhido gobolka Saraar iyo guud ahaanba dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana uu shacabka iyo maamulka guud ahaanba degmada Waridaad uu ka codsaday inay ka wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa degmada Waridaad. haddii ay waxqaadsan kari weydaan cashuurta baylaha iyo kontrabaanka maraya iyo dadka bilaa maamulka ay ku sii socon maayaan. nasiib wanaag waxaanu isku raacnay hadda in nidaamkii degmada Waridaad uu hawl galo, cashuurihii waa u diyaar way haystaan. niyaheena waxaanu isku waafaqnay in boorka laga tumo oo wax weyn la shaqeeyo. si kastaba ha ahaatee waxaa maanta degmada Waridaad iyo deegaamada hoos yimaadaba si rasmi uga bilowday bixinta iyo ururinta cashuurta iyo weliba sidii loo qaban lahaa kontrabaanka bilaa sharciga.